السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن كسو دوادا مركلة درسي كمدة دروستا كبحا دوكسي24.com عشر كانوا بإذن الله الكريم ما أنتو حكو سابسيني هاي الحركات الطويلة شقلة دادير بعد ما نسوق هذا الحركات القصيرة شقلة ذي قاقابنا ونكو سوق هذا 10 كصدحات وصدح قيبود ككوبنا فتحة كسرة ضمة ما أنت وحان قادنينا الحركات الطويلة شقلة دادير أما وحلو يقانو المد بأقسامه الثلاثة يعني مدك قيبيس صدح ذا سير أو فضد إن شاء الله تعالى أيان أشرحيها سان أفهنو قابك شغل كديري وشقيو قرآنك هي اللغة العربية سان لسعنو أما أنو سو برني وحان سو قادني سدح شقل أو قاقاون أو ليرادو فتحة كسرة يا ضمة فتحة كسرة ضمة كرديق هوستريق يكذل سدح ذا شقل وحيا هايين كوا قاقابن هذا بمركي فتحة لا ديرينايو سيل لو ديريا شقل كقابن سيبا لو ديريا oo shaqal dheer u noqonaya fadxa marka maxaa lagu dheereeyaa kasra maxaa lagu dheereeyaa damma maxaa lagu dheereeyaa ayaan ku baraynaa qaybtan fadxa hadii la rabo in la dheereeyo waxa weeyaan fadxa waxay isku haboon yihiin oo lagu dheereeyaa alif alifku waa xaraf mad weeyaan saddex xaraf madka waa alifka iyo wowga iyo yaada فتحة محل لغو ديريا ألف أيا لغو ديريا تسال أهان هدان قرو بعض فتحة وضطا وحان ربا إنان ديريو أو شقل دير كرديغو وحان كو ديريا ألف وحان نغنيسا با مركي ورا وحي هيد با هذا مركي ألف كو دير محي نغطي با وان ديري با أوكي هاي كسر محل لغو ديريا كسر محل لغو ديريا يا أيا لغو ديريا كسر محل كو هبون أما أي ولا ليهين وحا كو هبون أو لغو ديريا أو لغو تشيدا يا هدان قرو با أون كسر هوستيغو وحا نقونيسا بي وشقل قابن وحا ربا مركا إنان ديريو وحا كو ديرينيا يا وحا نقونيسا بي أي نقونيسا مركا كسرنا محا لغو ديريا وحا لغو ديريا يا ضمه محا لغو ديريا ضمه وحا لغو ديريا واو ضمه وحا لغو ديريا واو واو مركا هدان قرو با هدان قرو اون ضمه سارنت وحا نقونيسا بو هدان لكن ربينا ديريو وحا نقو ديريا واو وحا نقونيسا مركا بو تو ثو جو ساسو كله اوكي تي سي اوكي جي هالكن هي ثا جا حا وكا مركا حرف كان ألفك إيو يأذا إيو واوغا وحال يرادا حروفتا وحال الحركات الطويلة أم حال دها الحروف المدية حروفتا مدك أيال دها وحرفها لغو ديريو مارتي شقلك لغو ديريا شقلك دير نقونيا مركا حريرنا وحو كدحيا waxa weeyaan fatxa oo la dheereeyay ayuu alifku qaadanaya tusaalahan kale kasraduna waxa weeyaan ya ayaa lagu jiidaya oo lagu dheereeyaa yaaduna marka waxa weeyaan waa maaratay kasro codkeedii la dheereeyay oo la jiiday waa kasro oo shaqal dheer noqotay ayay muxuu ahaa yaaduna keenaysa markii lagu daro
marka waawguna saasoo kale waxaa weeyaan dammo ayay isku habboon yihiin dammada waxaa lagu dheereeyaa waaw ayaa lagu dheereeyaa marka saddexdan xarafa marka ay noqonayaan xaraf mad ay noqonayaan waa in alifka qasab waa inuu ka horeeyaa markasta fatxa waa inay ka horeysaa kasradana waxaan ku wada ya-dana markasta waa inay ka horeysaa kasra waawgana markasta waa inuu ka horeeyaa godaal ama damma waa inay ka horeysaa sida ka muuqata tusaale ahaan oo kale hortiina Soomaaliga afka Soomaaligu wuxuu leeyahay 5 shaqal oo gaagaaban iyo 5 shaqal oo dhaadheer sida aad la socotaan marka shaqalka a iyo e iyo u sidan ay isku habboon yihiin sana la dhihi karaa a waa alifka marka lagu dheereeyo muxuu ahaa maartay tusaale ahaan oo kale ba iyo ba wakaas tusaale ahaan oo kale ya-da waxay u dhigantaa e ay u dhigantaa waawguna wuxuu dhigmaa u ay u dhigmaa مثلا haddaan dhaho b alada b b b waka halkana waxay noqonaysaa b halkan waawga haddii aan مثلا aan ku daro bu tan waxay ahayd b tan waxay ahayd ba marka halkan waxay noqonaysaa bu okay waxaan rajaynayaa in aad fahanteen falsafada madka iyo shaqalka dheer ee higaada quraanka darsiga xiga waxaan qaadanaynaa tusaalooyin ku saabsan noo sharxaya maartay qaabka kelmadaha markay galaan loo akhrinayo markay shaqal dheer yihiin kuwaasoo badan ayaan darsiga dambe ku qaadanaynaa marka insha Allah taala ka faa'iideysi wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh